maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona bismillah mar kale waxaan bilaabaynaa casharadeenii tababarka macalinka ee buugga Soomaaliga fasalka 10aad ayaynu bilaabaynaa maadada af Soomaaliga ugu horreyn hadaynu fiirino ujeedooyinka guud ee maadada af Soomaaliga inta badan xagga ujeedada buugaagtu waa ka siman yihiin marka ujeedadii koowaad waxay ardayga inuu kordhiyo xagga ereyga oo ereyo badan uu sanad kasta kasbado oo ereyo badan helo baa loo baahan yahay ereyaynta naxwaha inuu sii horumariyo yani aqoontiisii naxwaha ama ereyada dhismahooda ama ereyada maalinka Soomaaliga waxay tahay weeraha dhismahooda iyo haday tahay qaybaha kale ee naxwaha inuu aad u fahmo inuu sii horumariyo sidoo kale ardayga waxaa la rabaa inuu horumar ka sameeyo qoraalka dhambaalada saynu buuggii koowaad ku soo dhiganay oo kale qoraallo fara badan oo ka soo hadalay kana waxaa la rabaa markaa inuu horumar kale sii sameeyo oo kii ka sii badan uu sameeyaa laga rabaa qodobka ku xiga qofka waxaanu ku soo dhiganay hore u soo dhiganay dhismaha weeraha Soomaaliga halkana waxaanu sii horumarinaynaa mar kale sida weeraha Soomaaliga loo dhiso haddii ay tahay weer nafan iyo haddii ay tahay weerka kan labadaba waynu sii horumarinaynaa sidoo kale waxaynu sii horumarinaynaa siyaalaha kala duwan oo iyo dhambaalo cusub oo hadda la qorayo oo kuwii hore ka yara duwan oo waxaynu sii kordhinaynaa qorista tirada dhambaalada ee qofku qori karo inay maarab sanadba sanadka dambe sii kordhaan ay ka sii bataan minaha maarag sidoo kale qofka macalinka ah waxaa la rabaa ardada inuu ku baraarujiyo fahanka dhaqanka waayo dhaqanka oo la fahmaa waxay fududeynaysaa fahmidda ereyga suugaanta tixdiya tiraabta maansooyinka waxa mahmaahda hawraaraha waxa in la fahmay keenaysaa waayo haddii aan dhaqanka la fahmin ardadan xilligan joogta way ku adkaanaysaa ereyo fara badan oo Soomaali inay fahmaan macnahooda ama ay si rasmi u helaan macnihiisa sidoo kale waxaa ka mid ah oo ujeedada guud ee buugga ka mid ah suugaanta iyo qaybaheeda kala duwan oo weli sii socda sidii uu ardaygu u fahmi lahaa ayaa looga jeedaa waayo nuxurka buugga uu xambaarsan yahay buugga waa 20 weeye waa 20 qiyaasta markaad fiirisid iskuulada dalkeena ama dugsiyada dalkeena waxaa wax la dhigtaa 36 baa wax la dhigtaa haddii loo qaybiyo toddobaadyada wax dhigashada 36kaas 10kii cashare kasta waxay leeyihiin 18 toddobaad bay qaadanayaan minaha maarag marka inkastoo yani xilliga hore uu ka badan yahay xilliga dambe minaha maarag 20ka cashar ee buuggu ka kooban yahay waxay buuxinayaan shuruudihii ama ujeedooyinkii laga rabay afka qofku inuu ka faa'iido 20ka chapter mid kasta ama kulligood ama qayb ka mid u buuxinayaan xirfadaha afka casharadoo dhan way qofkii akhriskii uu baranayaa hadalkii uu ku sii baranayaa dhageysigii iyo qoraalkii marka 20ka cashar xirfadahaas oo dhan way buuxinayaan sidoo kale naxwihii qaybo ka mid ah buuxinaya 20ka cashar suugaantii haday tixiya tiraab iyo maanso iyo dhaqan iyo riwaayad haday tahay iyadana qaybo ka mid ayaa buuxinaya minaha maartay dhammaan wax qabadyada casharadu sidoo kale waxay u adeegayaan xirfadaha afka ereyeynta iyo suugaantii u adeegayaan waxa la waxaynu ku arki doono wax qabad buuga intan bay u adeegayaan waa intan bay maartay hawl u hayaan wax qabad kastoo lagu diro ama waa ereyeyn bad ka faa'iiday ama xirfadihi afkaad ka baran ama suugaan bad ka baran ama tix bad ka baran ama dhaqan bad ka marka waayad bad ka baran saas weey okay
waxaynu halkan eegaynaa baraha qofka baraha ahee buuggan dhigayaa ama macallinka buuggan dhigayaa qaababka uu ugu fudud u dhigi karo waa sidii tii hore ugu horeyn waxaa la rabaa inuu raaco waxbarista nidaamka waxbarista ee ardayga udub dhaxaadka u yahay yani shaqada inteeda ma ardaygu qabanayo macallinku uu haga noqonayo tilmaamaha bixinayo waxaa kaloo oo baruhu u dhigi karaa buugga habka waxbarista iskaashiga ardayda indhahooda laga abuuro iskaashi iyagoo inay wada shaqeeyaan halkana wada raadiyaan waxqabadyada loo dirayo ka hirgeliya fasalka dhexdiisa inay ardaydu sameeyaan baaritaan yani wixii loo diro soo baaraan xogtiisa soo ururiyaan oo soo koobaan ugu dambeyn baraha waxaa la rabaa inuu ardayda kala shaqeeyo sidii ay isugu dayi lahaayeen inay tijaabiyaan xogta ay soo heleen oo kale inay tijaabiyaan xogta ay soo heleen oo macluumaadkan ay helayaan iyo warkan ay soo ururinayaan bal inay meelo kale ka soo xigtaan cid kale weydiiyaan si kale u raadiyaan inuu sax yahay iyo in kale muhiimadda waxqabadyada tantii hore way ka duwan tahay su-aasha koowaad waa soo celcelinay sababta loo soo celcelinaya waxa weeye in baraha la dareensiiyo qofka macallinka in la dareensiiyo waxqabadku muhiimadda uu leeyahay buugaagta in waxa ugu muhiimsan ee buugaagtan ku jira inay waxqabadka yihiin in la fahmo su-aasha ku xigta waa maxay ujeeddada buugga oo kale ardayda in la weydiiyo dabeedna iyagoo soo xiganaya aqoontii la siiyey waa inay soo saaraan ujeeddada buuggu arday sidee ah baad filaysaa inuu soo saari karo yani tan oo kale macallinka barahay ku xusaysaa qofka macallinka ah yani inuu qofka macallinka macallimiintu ka doodaan oo ka wada hadlaan su-aalahan oo kale yani marka macallimiintu ay ka wada doodaan soomaaliga dhiga bal buuggani arday nooceeyu soo saari karaa iyo guud ahaan isbeddel intee la eg baad filaysaa in dhiganaha tobnaad ama afka soomaaligu ku keenay ardayda soomaaliyeed uu ku keeni karo horumarka intee leeg bay gaari karaan minha maarta buuggu horumar intee leeg buu ku keeni karaa ardayda tana waa qiimayntii aynu hore u dhaqaanay oo cashar kasta aynu kusoo gebagaboobi jiray waa firfircoonida shaqo guri heerka xawaaraha akhriska dood wadaagga doodoo kale marka macallimiintu ardada ay u dirayaan oo kale waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid ah ardadu inaan iyagu isu dooran say jecel yihiin laakiin adigu aad u doorto markaad kooxaynaysi inaad kooxda inta israacaysa adigu aad maaragtay samaysid baa loo baahan yahay oo adigu aad macallin ahaan u doortid waayo haddii la yidhaha koox u kala baxa in istaqaan waad is dooranaysa marka had iyo goor waxaa cidla ku soo dhacaya ardaygii yara xoogaa liitay oo aqoontiisa yara hooseysay marka kooxdu ku daranka lagu daraya ardayga kooxda kale ee muhiimka ah ee manaha maaragtay aad wax u fahansan lagu darayo waxay keenaysaa inuu ardaygani ka faa'iido laakiin haddii mar walba ardaygii liitay meel uu ku xidhmayo ama maaragtay group koox liidatay uu ku dhacayo waxay keenaysaa in muuse marka maaragtay uu horumar badan samayn bay keenaysaa si marka ardaydu horumar isugu sameeyaan dhexdooda in koox marka loo kala qaybinayo waa in baruhu ama macallinku si fiican isugu kala qaybiyaan oo yaqaanaa qaabka uu ardayda isu raacinayo markay shaqo u dirayo iyo markuu dood leeyihiin iyo waxyaalahaas oo dhan ba minha maaragtay casharka toddobaad oo ku saabsan ereyeynta falka ayaa baynu eegaynaa marka horeysa ujeedooyinka falku disaynu soo sheegnay waxa weeye waa mawduuc ka hadlaya waxa dhacay marka meelaha ujeedooyinka markuu waxaan cashar kasta dee ujeedda la-aan ma socon karo horta baruhu waynu ardayda isla fahmaa ujeeddada casharka oo falka inaynu baranno maxay ujeeddadiisu tahay maxaynu ka faa'iideynaa in la isla doodo baraha iyo ardaydu isla eegaan weydiimiyo dood ka galaan aad bay muhiim u tahay waayo wax kasta waan ujeedo laga bilaabin yani marka u dambaysa way soo xidmaan inaa maarka waayo waxqabadka koowaad haddaynu fiirino waa isaguna waa waxqabad ka warramaya dhaqana marka waxaa lagaa rabaa inaad ka jawaabtid baa lagaa rabaa inaa maaragtay oo ardaygu fikiro oo maskaxdiisa kaga shaqaysiiyo waa wax fudud waa marka si fudud loo eego ma adka haddii masalan macallimiinta ay ku adkaato iyaga laftigooda inay waxan oo kale ay xalkiisa garan waayaan oo kale dee xafiiska manaahijta xiriirkiisa waa la yaqaanaa contactigiisana waad helaysaan dee la soo xidhiidha waa laydin sheegaya markaa qofka ku habboonay markaa jawaabta waxaan idin siin karaa laydinku xidhayaa inaa maaragta markaa saasay noqonaysaa
falka Soomaaliga sharaxaadiisa intana bayna ku filanba intana ayaana ku filan waayo falka Soomaaligu horta wuxuu qaataa wax la sal kordhiye wax weeye hadii goor gadaal ba wax ka raacan inta badan kuwa hore wax ka raacana way jiraan marka falka hadii gadaal wax ka raacan waxa la yiraahdaa fal abiyoona hadii hore ay wax ka raacan waxa la fal ma abiyooni baa ma abiyooni waa fal ma abiyoona baa la yiraahdaa oo hada aynu soo qaadano tusaalahan oo kale hadaynu soo qaadano bax oo kale aynu ka dhigno wax macnaha tusaalahan oo kale xilli tagay waxay noqonaysaa hadii uu niyahay waxay noqonaysaa tusaalahan oo kale waxay noqonaysaa baxay yani hebel wuu baxay wuu tagay oo kale minaha maaragtay joogo oo kale joogtay joogaa joogayaan gurigay shalay joogtay gurigu shalay joogay oo kale waxaad fahmaysaa waxaan erayadan gadaal kaga darsamaya marka falka waqtigiisu isbedelo sal kordhiye ayaa la yiraahdaa waxaan gadaal ka raacaya oo eraygu baxbu ahaa intan gadaal ka raacay waa sal kordhiye ina maaragtay haddaynu soo qaadano for example haddaynu soo qaadano oo kale tusaalahaan oo kale waxay noqonaysaa say cuneen waa iyaga ama cunay ama cuntay oo kale soo jeeda gadaal isaga bedelay marka waxaan gadaal ka raacayo oo sal kordhiya la yiraahdo qofayna macnaheedu waxa weeye falka Soomaaligu marka qof gaar ah laga hadlayaba wuu isbedelaa hadaynu gabar ka hadlayna wuu isbedelayaa hadaan wiil ka hadlayna wuu isbedelayaa hadaan dadku waxa ka hadlayna hadaan inagu iska hadlayna wuu isbedelayaa marka mar walba qofka laga hadlayo ayuu isla bedelaa tirana wuu isla bedelaa waa mesela marka qof kaliya laga hadlayo marka laba laga hadlayo marka saddex laga hadlayo marka afar laga hadlayo isla bedelaa goortana wuu isla bedelaayo marka laga hadlayo xilli tagta isaga xilligiis waa tagto taagan iyo timaado wax tagay waxada taagan iyo wax timaado oo soo socda oo maaragtay hadda aan joogo mid kastaana wuu sii kala baxaa oo haddaan marka tagto soo qaadano oo kale waxay noqonaysaa tagto caado tagto dareerto tagto bay noqonaysaa minaha maaragtay sida aad buuggaba minaha maaragtay ku arki doontaan minaha maaragtay sida aad buugga ku arki doontaan minaha maaragtay marka sidoo kale waxaa jira larayaal erey kale oo ku larma ayuu leeyahay oo raaca oo marka erey kale ama hore ka raaco ama gadaal ka raaco kale markaad afka dirsiisaan inkastoo ay kuwan ugu talagalay cutubyo 10 dambe inaan ku barano laakiin hadda 10keenu wuxuu ka hadlayaa saddex baa ugu horeeya ayuu ka hadlayaa minaha maaragtay waxqabadka kan wuxuu ku saabsan yahay waa su'aalo ardayga laga weydiinayo 10kii uu soo dhigtay weeye 10kii uu soo dhigtay waxa aad taxdaa waxyaabaha falka Soomaaligu isla bedelo salaam oo kale aanu isla bedelaa qofka tirada qofka iyo tirada iyo goorta inta uu isla bedelaa minaha maaragtay saas oo kale qeex qofaynta falka Soomaaliga oo kale waa maxay sal kordhiye oo kale sidee tiradu u saamaysaa falka Soomaaliga oo kale waa maxay qurb weereed waxa weeye waa waxay iyo ba iyo buu iyo waa yaa iyo kuwaas qurb weereed la yiraahdo qiimeynta saynu hore u soo dhiganay waa intii aan hore u soo maray oo la rabo baruhu mar walba inuu markuu xiisadu dhamaato uu ku qiimeeyo ardayda waxaan gelaynaa 10ka 11aad oo qoraalba ku saabsan yahay waxaanu ka hadlaynaa wax la tilmaam bixintu waxa weeye qofka inaad siisid tilmaamo siduu hawl u agaasimi lahaa tusaale ahaan oo kale qofka wuxuu kugu yiri waxaan soo gatay mashiin inaan rakibaan rabaa maxaad igula talin lahayd ka inaad siisid instruction inaad siisid sharaxaad inaad siiso tiraahdo sidaa yeel ugu horeyn saa yeel marka ku xigta saa yeel marka saddexaad marka afraad talaabooyinku u mari lahayd aad u sharax qof baa wuxuu ku yiri waan socdaalaya waxaan aadaya magaalo hebla
inaa u tilmaanto tiraahdo okay waaye magaalo hebladaada taha marka ugu horeysa halkaa baabuur ka qaado magaaladaasa tegaysaa taa haddana sii mar taa sii mar halkaa mar oo hadday u jeexdid meeshuu mari lahaa o dhan qofbaa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaan sameeyo tusaale ahaan oo kale inaan cunto sameeyaan rabaa laakiin sidii loo samaynayo maba garanayo marka inaad u shiraahdo tirahdo okay ma cunta samaynaysa ha saa yeel ood u sheegtay marka taas waxaa la yidhahda tilmaam bixin baa la yidhahdaa tilmaam bixin ayaa la yidhahda marka ugu horeyn baruhu weynu ardada u sharxaa ujeeddada tilmaam bixintu leedahay waayo tilmaam bixinta meelo fara badan bay nolosha ka soo gashaa sidaa daraaddeed ardaygu inuu fahmo sida tilmaanta loo bixiyo aad bay muhiim u tahay waayo waxqabadkan waxqabadkan oo kale wuxuu ka mid yahay waxyaalaha muhiimka ah ee loogu talagalay ardaydu xagga maandhiska waxqabadka loogu talagalay maandhiska weeye oo qofka maankiisa lagu dhiso marka sheeko adag baa lagu akriyayaa sheekada waxaa la rabaa baruhu inuu fahmo si uu hadhow ardayda uga dhaadhiciyo qaabka loo samaynayo hadda waxaa lagu siiyey sheeko war isku khaldan baa lagu siiyey waa war saxa laakiin waxaa la rabaa inaad fahanteed waxaa laga waxa aad akhrinayaa masalada soo socota oo aan soo dhiranaya furdaaminteeda si loo furdaaminaya halka ka soo saaraya waayo waxaa sheekadii hore warinayay lama baahin 8 Abriil sidoo kale wariyaha gobolka bari ma aha kan baahiyay sheekada suul cawro wariyaha hoolif iyo wariyaha sheekadiisa la baahiyay 7 Abriil iyo wariyaha jooga gobolka mudug waa 3 qof oo kala duwan hugur ma aha wariyaha jooga gobolka togdheer hugur ma aha wariyaha jooga gobolka bari wariyaha jooga gobolka baay ay iyo wariyaha baahiyay sheekada cadceed midkood waa hoolif kan kalena waa wariyaha sheekada la baahiyay 4 Abriil hadda marka fiirsi marka horeysa qodobkaas wada akhriyaysaa marka qodobka akhriyay waxa la sheekada sheekada hurre wariyay lama baahin 8 Abriil markaad xagga tagtid haddaad iminka iyadii baa sii socotay haddaad halkan tagtid waxaad fiirisaa waxaa la sheekay 8 Abriil lama werin marka waxaad fahmay halkaa hurre ma geli karo baad fahmaysaa minaa maaragtay haddii aynu dib u celino waxaa la yidhi wariyaha gobolka bari ma aha kan baahiyey sheekada suul cawra marka waxaad fahmaysaa inaanay isqaadan karin sheekada gobolka bari iyo sheekada suul cawrana isma qaadan karaan wariyaha hoolif iyo wariyaha sheekada la baahiyey 7 Abriil iyo wariyaha jooga gobolka mudug waa 3 qof oo kala duwan baa lagu yidhi intaana waxaa lagu sheegay markaad warkaasoo dhan si fiican u fahantid oo aad 9 qodob dhamayso qof ardaygu fahmo waxaa la rabaa inuu halkan buuxiyo warka u soo baxa wariyaasha say u kala horeeyaan mid walba ka sheekadiisa la baahiyey Abriil 7deedii iyo Abriil 5teedii 6deedii 7deedii 8deedii iyo mid walba sheekada uu wariyay iyo gobolka uu joogo marka saa u buuxisay waxaa laga rabaa inaad u gudubtid kan haddana inaad buuxisid oo tusaale ahaan oo kale hurre wuxuu wariyay sheekada halkaan rabaa tignasis okay marka sheekada hurre kaa un baa wariyay inta kale marka waad ka xidhaysaa wax dambe oo sheekadaas hurre wariyay ma jiraan kaa un baa wariyay tusaale ahaan oo kale sheekada 6 Abriil waxaa wariyay hurre sheekada 7 Abriil waxaa wariyay 7 Abriil waxaa wariyay hoolif markaa tigsiinaysa waxaad oranaysaa hoolif baa wariyay marka haddaad hoolif tigsiisay inta kale way xidhan tahay marka okay sheekada Abriil 8 waxaa wariyay hufan baa warisay halkaa markaad tigsiisay inta kale ka xidh marka waad ka xidhaysaa intays marka saad u buuxinaysaa saasaa loo buuxinaya laakiin marka hore waxaa horeeya oo la buuxinaya kan aan eegno bal hadda labadoodii oo laga shaqeeyo buuxsan aan fiirina hadda bal kaasoo sidii loo buuxinayay aan fiirino kan sida loo buuxinayo fiiro marka ugu horeysa hadda fiiri halkaas waa maalintii wariyihii sheekadii iyo gobolkii markii warkii 10 qodob aad akhriday waxaa kuu soo baxay Abriil 4teedii waxaa la wariyay sheekada cadceed waxaana wariyay wariyaha hufan
waxayna joogtay hiiraan bay joogtay waa kuu soo baxday 5 April waxaa kuu soo baxday sheekada la wariyay waxay ahayd Araweelo waxaana wariyay Hugur wuxuuna joogay Mudug 6 April waxaa kuu soo baxday sheekada la wariyay waxay Dhagdheer waxaa wariyay Hoolif wuxuuna joogay gobolka Baay 7 April waxaa la wariyay sheekada Suuleeg waxaana wariyay Hurri wuxuuna joogay gobolka Bari sheekada la wariyay bisha 8deedii waxay ahayd Suul Awro waxaa warisay Hoodo waxayna joogtay Togdheer seema marka qofku waxaan ku helay wuxuu ku helay qofku waxaan wuxuu ku helay markuu akhriyay 7 qodob oo mid warkooda u soo qaatay oo 10 qodob markuu akhriyay ayaa warkan soo baxay laakiin waxa la rabaa ardaygu macalinku inuu sheego ku noqnoqo warkan mid walba bartu dhacayo meesha uu halkan ka digayo inuu ardaygu soo saaro raba markuu soo saaro ardaygu halka soo saaro hadda fiiri markii aan buuxinay salahan oo kale kan markii la buuxiyo kale haddana waxaad buuxinaysaa ka hooseeya wasaad buuxinaysaa hadda waxaan soo qaadanaa hadda waxay isugu keen aadan April 4 hufan ad eed iyo hiiraan Soomaa bal fiiri waata iyadoo la buuxiyo halkan hufan meeday waata Soomaa hufan waxay ku aadan tahay April 4 inta kale waa xidhan tahay Soomaaliya haddana waxay ku aadan tahay halkan hiiraan haddana waxay ku aadan tahay sheekada cadceed oka saddexaas ay ku aadan tahay fiiri oka cadceed waa tig hiiraan waa tig hufan waa tig haddii aynu dib u noqono oo aynu fiirino ka ku xiga fiiri 5 April Hugur Araweelo iyo Mudug ba isku aadan marka waxaad tegaysaa bal Hugur tag Hugur fiiri waa kan meey Hugur waa kan Hugur daa fiirisi sheekadiisa waxaa la wariyay 5 bisha wuxuu joogaa Mudug wuxuu sheekadana waxa la yiraahdaa Araweelo waka saas isugu aadaysa marka kan ma buuxin kartid ilaa aad ka buuxiso kan markaad buuxisana warkii hore lagu siiyay 1 ilaa 10 baad si fiican u soo akhriyaysaa oo aad ku noqonaysaa mid kasta caadi u soo baxaya laakiin warka waa la isdaba mariyay waa la isku soo haysaa sababta la isku soo hayay way ardayga maskaxda inuu kaga shaqeysiyo la rabo macallinkuna marka waxa la rabaa inuu saa u fahmo oo ardayda saa ugu sharxo waxana waxa loogu talagalay waa maandhiska weeye waa maandhis ardaydeenu inay xalinta dhibaatooyinka adkaysi iyo dulqaad u yeelan karaan waa dhibaatooyinka xalin karaan baa loogu talagalay sheekadan oo kale minaha maale saas weeye insha Allah wana tusaalayaal kale oo casharada wadama aynu ku qaadan doonaana waa inoo soo socda kan marka intaas aynu kaga gudbana insha Allah hadii Allah okay waxaan gudbana marka casharkeeni wuxuu ku saabsanaa tilmaam bixin ku saabsan tilmaam bixintu maxay tahay marka waa inagii soo sharaxnaa tilmaam bixin qof baa wuxuu tilmaamaysaa suu wuxuu qaban lahaa suu wuxuu samayn lahaa siduu yeeli lahaa ayadu sheegaysaa aad minaha maale okay marka bal hada qaabka marka loo samaynayo aynu isla fiirino hadda هذا واحد كسو قادا وحالي تحا meelaha loo isticmaalo waxa kamid ah for example taxa karinta iyo loo yaqaan isku darku waxa weeye ingredient English ka kale waa inta marka la sameeyo waxa la isku dardaray soma isku dar weeye macnaha isku darkaas kaas loo jeeda qof bad waxaad u sheegaysaa ciyaaraha sida loo ciyaaro kale mise qof bad waxaad u sharaxaysaa sida ciyaar loo ciyaaro saasane saayeel saa u ciyaar qof bad waxaad u sheegaysaa baxnaaninta ama tijaabooyinka sayniska sida loo sameeyo waxaad tijaabisaa u baxnaanaysaa oo toos sheegaysaa sida mashiinada loo rakibo ama loo isticmaalo oo kale qof baad u sheegaysaa qof baa wuxuu soo gashay mashiinka dharka lagu dhaqdo ma yaqaan sida loo isticmaalo saadabka u geli halka fariisi sameel siman marka hore sameel siman dhig dabka rakib korontada u shid badhanka taabo dharka saa u wixii aad u sharaxaysaa minaha maalinta aan fiirino marka hal tusaale aan soo qaadanayna tusaalaha koowaad tilmaam bixin sida burukuneed loo sameeyo burukuneedka marka ereygan burukuneed bahalka la yiraahdo keega Soomaalidu markaad u fiirso doolshe iyo keeg iyo afaf qalaad laakiin de bahalku wuxuu ka sameeyay bur iyo ukun Soomaa soo waxaan burukuneed weeye waa bur iyo ukun la isku daray waa burukuneed weeye bal sida loo sameeyo marka fiiri ugu horeyn waxaad rabtaa inaad مثلا خيرkaaga inaad u sameeysid keeg fiican ama doolshe fiican baad rabtaa inaad u sameeysid way doolshina waa Talyaani keegna waa Ingiriis weeye moogta isku darka burukuneedka waa kan si la isugu daraya marka waxa la 500 gram oo bur soo qaado oo nus kiilo ay 170 gram oo subag saxina
175 oo sonkor qasabley sonkorta maanta sonkor qasabka laga sameeyay laba far iyo suul cusba far iyo suul waxa la yiraahdaa markaasa loogu qaada far iyo suul la yiraahdaa hal qaado muggeed oo qaadada shaaha oo budada fixisada saddex mir oo ukun hal koombo oo baraxa caano la isku baraxay minaha maalan waad soo qaadanaysa intaas waa waxa u baahan tahay marka doonaysa inaad samayso okay marka qofka marka hore waxaad u sheegaysaa waxa uu u baahan yahay dibadna waxaad u sheegaysaa sida loo samaynayo diyaarso baaquli weyn ama baaf weyn oo burukineedka lagu xasho lagu rufaaqo lagu burburiyo minaha maalan isku xash waxyaabaha burukineedku ka kooban yahay qodobka saddexaad diyaarso koombooyinkii lagu dubi lahaa harubada yareed lagu guray markaad goysid lagu gelinayo meesha maalinta koomba kasta ku dhoob subag yar ama dufan kale isla kolkaana warqad yar oo u dhaxaysa koombada iyo burukineedka geli warqad yar saa loo geliyo weeyna charchar xashka oo in isla eg ku gur koombooyinka la dubay shid foornada burukineedka lagu dubayo adigoo heerka gaarsiinaya 1800 geli koombadii burukineedka ku jirtay foornada u daa ha dubantay 15 korasho 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo ka soo gur koombooyinkii foornada oo xoogaa u daa banaanka ha qaboobeene kolka ay qaboobaan si reerkaaga ha cuneen waka talabooyinkaas baa la raacayana marka kaasoo kale waa tusaale sidaas waa dawga tilmaam bixinta loo raaco kolka la samaynayo burukineedka mid kale hadaynu soo qaadano wax qabadkan oo kale isna waxa weeye waa wax qabadyadii maandiska weeye qofka maankiisa lagu dhisay weeye marka macallinku ardaygu waa akhriyaya dabadna ardaydu way fikirayaan way wada shaqeynayaan iyaga marka jawaabta soo xalinaya minaha maalinta qiimeynta ardayga fasalka wakaas marka 10ka dhexdiisana ama tilmaam bixinta waxa ugu teegisaan tusaalayaal kale oo badan baa ku jira laakiin inagu 10ka intaan ku soo koobsanayna